إنه عبارة ودكني عام يلي إنه إلهي نقصه شبيه وإلهي ربحات كيس خير كبر الله إلا سيان إلهي كبر إنما دام أنت إن هالك اسكت من ضي ما تبغى نسكت من هذا هو حكت عيني وتلمان هو صاك عين أحمد بفرق وصبرون عليك يصبرون عليك انت هذا كاي معضو حفلتنا ما انت ما يسوي مكينن اما حكومتنا هي حسبك كليه ميزان كيغا مدحويني جمهوريه الصوماليه كم مقان yahay ibashadiisan beelweyntan habar cafaan ee halka fadhida dhammaan marti sharaftani iyo inta codbaahiyaha ka arki doonta iyo inta war sugaysaba maanta halkan isku ibashadeena ka warramaya haddii la dadku waxay sidaahdaan war suldaankan siyaasadda ku fardhuubani xabukay kuwaas deebal wal isweydiiya waxaan taasaan maanta difaac wal istifaaciya maanta wata bato inta ana suldaanahay ayaan arrimahan horta dhex galay horta suldaannimada iigu timi sidaa marka ay tahay dee raggii siyaasadda aan isku naqaanay ayaa maalintii ururada la furayay jamhuuriyadda Soomaaliland ee barigii dhaweyd ee 5 sano ka hor ahayd ayuu xidhiidhna dhex maray xidhiidhkiina dhex maray soo afjaridiisii baa maanta joogta maalintii ay kala jabtay cud ee garabka ee maanta wadani ka soo go'ay ayaanu wada hadal yeelanay aanu kaga wada hadlayno mustaqbalka xisbiga kolku ugu ururada halka uu maray ilaa yoom hada arinta dhowr qof ee ugu horeeyay hawsha daadiinaysa ka mid ah waxaan u soconay aanu halfiyo diglahayna waxay dadku og yihiin oo ka dheregsantii bay haydo xajar aswadkii Soomaaliya baa la wada taabanay kulmiye ama asxaabta qaranka horaba waa loo ahaa lagu intaa ku jirtay laakiin waxaani keentay halganka hanti bixinta socodka waxa kursigaas u baahida kuraasada kale baahay arintii caynka ahayd ee maskax daagu qaalisan muruqa hantida aan ku soo wadnay ayaa 22 Oktoobar 2016 ay jaha kala qabatay isla saacada ay dhacaysay ayaa iclaamiyay ninkii meesha reerka xagaya aniga yahayde isla saacada abaasator ka socotay ana gurigay ka socotay baaqa maanta soo afjaray waxaan ugu baaqay in shir degdeg oo 20 bilood isku yimaadaan oo 2 maalmood wuu qabsoomay waxa ka soo baxay 25 guddiya oo aqoonyahan iyo odayaal isugu jira waxay ku soo gunaanadeen arinta iyada ahayd mudadalkeegii iyo wada hadalkeegii inay maanta xafladda maanta ay qabsato كلمة كستو إلهه أو نقول بقى رأيك جيت كيقول على مساري سيده هيد بوفلين سيده هيد بوفلين وأنا أقول هذا شربير كذب وده ويب صعدي جددي وعكسوا بناء الدين إلى السياسة ده
maanta Soomaaliland guurguuraysa inay ka fadhiistaan meel fadhiistaan waxay go'aansadeen iyadoo marka hore kulmiye ay ku jireen inay si cad oo bareer ah oo biyo kama dhibcaan ah kulmiye u dhex degaan waxay soo qortay qodobo badan maadaama ay soo ururayaan qodobo badan bay soo qortay qodobadii ciddii u xaqa lahayd oo maanta halkay naga fadhida gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ka mid yahay musharaxa Musaddiq Cabdi uu Cabdiraxmaan ka mid yahay qodob kasta oo loojiga oo meeshiisa ku habboon sideeda u qaaday mid kastaana wuxuu qabsoomayaa maalinteeda ay ugu habboon tahay sidaa awgeed siyaasaddii muddada aan ku soo dhex jiray ama suldaaneen meelaha la joogo maanta meel baan dhigayaa haddii urur la furo oo saaka la furo ama dib loo furo haddii meel kasta hawl kasta ka timaado maskaxda iyo muruqa iyo maalkaba reerkaasi waxay nigu ogahay kulmiy sahankii haddoo dirteen hawlii haddoo imateen ad u codayseen ad meel dhigteen maanta laga bilaabay intiinii bannaanka joogtay ee xisbiga waddani joogtayo halkaasi aad ku jirtaa hadday hadday magac leedahay baad ku jirtaa raggii halgabayaasha ayaa gabdhahii ee qurbaha joogay ee 7 gobol ee dibadda wakiilka ugu ahaa waddani ayay intii taageeraysay saacaddaa laga bilaabo waxaad ku wareegaysaa kulmiy aad baad u mahadsantihiin aad baan idiin bogaadinayaa dhaganuglaantee ka soo qaybgala xukuumadda xisbiga kulmiye aad baan idiin bogaadinayaa waxaa lagu yaqaanay Somaliland inuu xisbiga loo tegaya xaflad qabsado oo ummadda ugu yeedho annaga xafladdan qabanay annaga wayna cajiibeen sababta hadalka aan ugu horraynayaana taawi kulmiye berigii cabdaal iyo dowladdii salballaari waa tan maanta salballaari waa tan wey bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi bartanka halkaasay maanta waxa weeye haddii badan aan dhex soconnay haddii laysoo eegayey waxa boorka ka soo kacay raggii hawsha ka tari lahaa boorka ka soo kacay ama aqoonyahan aha ama ganacsato aha boor way fadhi ka soo kacay wax tilmaantina qolka igu hadhay hebelow ka daa ku weex ayay ku soo aad baan idin salaamayaa